امتحان قلاي وليجي نلشيدا انت امتحان قلاي كينيا امتحان كسو قال دugsi dhexe KCPE aan soo galay ma arkin imtixaanka qaabdaran imtixaanka maanta aan gali lahay imtixaanka weligay ma arkin war anoo Soomaaliya oo Kenya imtixaan ku galay KCPE galay askarta Kenyaatiga saas ilama dhaqmin aanay saas ilama nimanka Soomaaliyeed oo askarta waardiye inay filatur ugu dhuftaan haddana oo dhaho inuu dibadda ka imaado imtixaanka la galo waa wax kan sale goodax barra waxa ku taacib waana fashilmayay raxmatullaahi wa barakaatu aniga hadlay foonfoorada waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada qalad ee gashay haday ku ciqaabayso ardayda Soomaaliyeed waa mid gooni ah oo nasiib xumo ah gudoomiyaha waxbarashadana waxaa nasiib xumo u ah inuu caayo waalidiinteena Soomaaliyeed oo sharafta leh wasiirka waxbarashada gaar ahaan waxa uu sheegayaa in uu caayo waalidiinteena oo sharafta leh oo nasoo koriyeen oo waxbarashada naga dhiibeen asigoo hadda noo imaado oo waxbarashada oo wuxuu dhahay imtixaanka anaga si fiican u qaadina wuxuu sheegay inuu imtixaanka oo xaqiijisan yahay laakiin shaqadiisa inuu imtixaanka markii la qaadayo oo baxo khayr mas'uulnimo qaado markaa galnay maadooyinka boqolkiiba 80 markaa galnoo imaado oo dhaho imtixaanka waa lagu celinaa waa wax nasiib darro ah waxa uu sheegayaa wasiirka inuu xilkiisa ku fashilmay waxa uu baaqaa markii si tartiib leh oo sharaf leh inuu ugu dago iskuul ay garan ma soo dhibin iskuul lacag la'aan ma siiyaan isbitaal lacag la'aan ma siiyaan sidee ay tahay nafteena oo kana imtixaanka agaleen akhlaaq daraan uu la dhaqmaa waa iska sabarnaa sidee ay tahay imtixaanka agaleen la soo dhigtay goodax bare waxaas kama yeeleen kama akhrisanayno waxa uu sheegayaa inuu imtixaankeenu noo nabadgeliyo hadduu isxaan noo sameeyay afar dimaad ugu dambeeyay hanoo adkeeyo adoon noo adkeenayna imtixaanka loo ma galeen inuu waalidiinteena caayo inuu anaga ardaydeena caayo sababtoo ah inuu ka soo qaado tusaale ilmuhu dhalay sababta ilmo waa dhalay waalid waa u yahay naag dumar waa qabiyaa ragna waa qabiyaa sababta waa hooyo u yahay aabo u yahay adeer u yahay sidoo ugu damqana waa inuu dadka Soomaaliyeed ugu damqada sababta ardayda Soomaaliyeed waa la qanci kara mal qanci kara lu dhaa sababta inuu waxna dhaho maahan inuu la tashto maanta dadka dhan inuu la tashto waa sababta adkilihiisa ma laha meeshan sababta Soomaaliya madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka sideedaba Soomaaliyeena waxay dhahdaa ninaan ku furi doonin yuusan ku raran sidaad ogtihiin qashkan anaga noo soo baxay ama qashka soo baxay dad soo saaray dadkaasna wasaaradda ka tirsan yihiin wasaaradda la shaqeeyaan bal waxaan idin weydiinaya ama goodax barro ama wasiiro waxaan ku weydiinayaa maanta ama shalay dadka qashka soo saaray maanta ma u diidi kartaa inay bari ay qashka soo saaraan waa maya dadkii way joogaan wasaaraddii ay ka shaqeeyaan meeshay kaagala shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegayaa hadii ay dhacaysa in aan dib ugu laabano qaran ama dib aan ugu laabano imtixaan in goodax bare oo xilka ka casilo haduusan xilka ka casili karin anaga imtixaan diyaar uma nihin awalan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anagoo ah bahda reer foonfoor oo Soomaaliya waxaan loo geystay ma aha wax caadi ah waxaan lagu sameeyay waxaan taaganahay wasaaradda waxbarashada horteeda si kasto wayna maqlaaya codkeenu uu soo gaaraya wasiirka waxbarashada isaga ilmihiisa uu dirtay anaga 12 sano insaan la yeelo oo waalidkeeni oo intaas sano wax soo dhiiba dawladda hal axsan oo ee dhikaarka waa naga gadato wax walba naga gadatay in iyaga ay nagu sameeyaan in asiga waxa ugu baaqaya inuu is casilo waayo anaga ma rabno waxbarashada imtixaan ma rabno iskuul ay garan ma soo dhibin iskuul lacag la'aan ma siiyaan isbitaal lacag la'aan ma siiyaan sidee ay tahay nafteena oo kana imtixaanka agaleen akhlaaq daraan uu la dhaqmaa waa iska sabarnaa sidee ay tahay imtixaanka agaleen la soo dhigtay goodax bare waxaas kama yeeleen kama akhrisanayno waxa uu sheegayaa inuu imtixaankeenu noo nabadgeliyo hadduu isxaan noo sameeyay afar dimaad ugu dambeeyay hanoo adkeeyo adoon noo adkeenayna imtixaanka loo ma galeen waalidkeenu waa aflagaaday hadalku waalidkeenu ku aflagaaday waxaan rabnaa inuu meel loo soo saaro sababtu waalidkeenu u dhaw waalidiinta ma wasaqinta u baahan waalidiinta heerka soo gaarsiin maanta dharka xirina iyo sharafta ayaga loo keenay waalidkeenu waxa awalkood ku gudan manaqaan goodax bare iga gaarsiiyo fariintaas